mid ka mid a maxaabiistii ay gacanta ay ku hayeen garabka militari ee xoogagga iska caabinta ayaa markii la sii daayay isniintii lasoo dhaafay kadib wuxuu faahfaahin ka bixiyey qaabkii loola dhaqmay 20 maxbuus ayaa la sii daayay maalintii isniinta laakiin laba ka mid a sheekadooda ayaan kula wadaagi doonaa oo mid ka mid a telefishinka Al-Jazeera ayaa sheekadiisa baahiyey. maxbuuskan waxa uu shaacu ka qaaday in xoogagga iska caabinta gaar ahaan kooxdii harka ama hooska ee ilaalinaysay ay ka aqbaleen ama ay ka jawaabeen codsiyadiisii ahaa in la siiyo qalabka salaada yahuudda ay ku dukato iyo kitaabka towraadka intii uu ku jiray gacanta xoogagga iska caabinta. waraysi markii ugu horeysay uu bixiyay ayaa wuxuu ku sheegay General Matan Engreste isagoo la hadlayay kanaalka 13aad ee Israa'iil laga leeyahay inuu xoogagga iska caabinta ka dalbaday in loo keeno sheyga ay iyaga u yaqaanaan tefalin, yani waa sanduuq yar oo maqaar laga sameeyay oo yahuud ay ku xirtaan qaybta hore ama wajiga ama foolka inta iyaga salaada ay aaminsan yihiin ay ku jiraan. waxa kale oo uu sheegay inuu ka dalbaday kitaabka salaadaha iyo sidoo kale towraad. intaas wuxuu ku daray marka in garabka military xoogagga iska caabinta ay u keeneen dhammaan waxyaabihii uu ka dalbaday. laakiin halkee laga keenay? wuxuu yiri waxay ka soo heleen goobo ay ciidamada Israa'iil ay ka deganaayeen gudaha magaalada Gaza. Engreste waxa kale oo uu sheegay in uu salaadiisa uu dukan jiray maalintii 3 jeer intii godka uu ku jiray loona ogolaaday wax walba oo aanan loo diidin. wuxuuna yiri salaadahaas aan dukanayay yani 3 jeer ayaan mucjiso kaga badbaaday. si gaar ahaaneed mucjisadii uu ku tilmaamay duqeyn uga imaanaysay isla ciidamada Israa'iil. wuxuu yiri goobihii aan ku sugnayn ayay ku bartilmaamaysadeen duqeyn laakiin waan badbaaday. xoogaguna wax dhibaato ay ma aysan geysan oo way ii ogolaadeen in salaadayda aan dukado mar hadiiba ay qalabkii ii keeneen. marar badan ayuu garabka military xoogagga iska caabinta wuxuu ku celiyay marka in dadaal kasta ay ku bixiyeen ilaalinta noloshooda. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. waxaana xoogagga iska caabinta ay ka dhabeeyeen ballanqaadkii ahaa inay maxaabiista ilaalin doonaan iyagoo sidoo kale ka ilaaliya duqeyntii ka imaanaysa dhinaca Israa'iil oo aan kala soc lahayn taasoo khatar weyn ku ahayd noloshooda. waxa la xasuustaa markii ay soo bandhigeen maxbuuskii Ameerikaanka ahaa oo markii la sii daayay kadib yiri Gaza ayaan ku soo laabanaya muuqaalkiisii iyadoo ciidankiisii ay dhibaateeyeen laakiin garabka military xoogagga iska caabinta qaybta caafimaadka ay xaaladiisa caafimaad ay la tacaalayaan. wuxuu yiri marka si wanaagsan ayay inoola dhaqmeen dhammaan xubnihii gacanta inagu hayay. waxyaabaha askarigan uu sheegay sidoo kale waxaa ka mid ah inuu si cad uga soo horjeeday xaaladda adag ee maxaabiista Falastiiniyiinta loogu geysanayo xabsiyada gumeystaha. annaga maadaama sidana loola dhaqmay wuxuu yiri ma ahan in maxaabiista Falastiiniyiinta sidaani oo kale loola dhaqmaa. waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka caalamkaba inay qabeen aragti ah in maadaama kuwii Falastiiniyiinta la dhibaateynayo kuwan Israa'iilna la dhibaateeyo laakiin fariinta ay xoogagga iska caabinta dirayeen ayaa ka weyneed dhibaatada loo geysanayo dadka shacabka. tan oo kale ayaa ka mid ah. marka maxbuuska wuxuu yiri in shacabkii Falastiiniyiinta ay xabsiyada ku jira jirdil iyo dayac caafimaad iyo dhibaato joogto ah loo geysto ma ahayn buu yiri. sida ay cadeeyeen maxaabiistii dhawaan la sii daayay kadib heshiiska isdhaafsiga maxaabiista waxay yiraahdeen annaga dhibaatadaasi oo idil lama aanan kulmin. tan isniintii la soo dhaafay xoogagga iska caabinta ayaa sii daayay 20 askari oo Israa'iil oo nool waxaana arbacadii fiidkii ay ku wareejiyeen ciidamada Israa'iil sidoo kale 10 meeyda iyadoo ay xoogaggu ay sheegeen weli inay u baahan waqti kale oo dheeraada si ay u soo saaraan meydadka kale. 250 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo xabsi daa'im ku xukunaa iyo 1718 maxaabiis ah oo la qabtay wixii ka dambeeyay 8 Oktoobar 2023 ayay Israa'iil sidoo kale sii daysay. waxaana maxaabiistaasi Falastiiniyiinta looga badashay 20 maxbuus ee Israa'iiliyiinta. marka taa laga yimaado waxaa baraha bulshada sidoo kale qabsaday waraysi la sheegay in lala yeeshay mid ka mid ah maxaabiistii ay sii daayeen xoogagga iska caabinta ee Xamaas. maxbuuskaasi marka waxaa la sheegay hadalkiisii in buuq badan uu ka dhashay kadib markii ciidamada qaaska ee xoogagga iska caabinta la sheegay inay iyaga laftooda qayb ka ahaayeen abaabulka banaanbax weyn oo ka dhacay gudaha magaalada Gaza. banaanbaxaas oo aan wada xasuusanno idinla wadaagay waatii xitaa aan lahayn suuragal ma tahay in dhexdooda laga shaqeeyay. xilligaas waxa laga yaabaa dad badan
oo inaga mid ah xitaa si kale inay u arkeen banaanbaxaasi. inkastoo warkan xaqiiqadiisa aan weli baaritaan rasmi aan ku hayo, haddana warbaahinta baraha bulshada si gaar ahaaneed Instagram-ka iyo Twitter-ka ayaa si weyn loogu baahinayaa macluumaadka ku saabsan in maxbuus Israa'iili ah oo waraysi bixiye uu sheegay mudaharaadkaasi inuu ahaa mid ay soo abaabuleen xogaga iska caabinta. sidee ayay wax u dhaceen? waxaa jira mudaharaadyo ballaaran oo ka dhacay xaafadda Beedlaaxi xilligii dagaalku aad u kululaa ka hor intaanan heshiiskan la gaarin. kadibna banaanbaxyadu waxay u sii gudbeen oo ay gaareen ilaa dhanka xaafadda Beyd Xanuun, halkaas oo sida la sheegay lagu muujiyey in looga soo horjeedo xogaga iska caabinta ee Xamaas. laakiin waxay warbaahintu ay baahinaysaa mudaharaadyadaasi inay ahaayeen kuwo ay ka soo shaqeeyeen garabka military ee xogaga iska caabinta, sidoo kalena ay ka faa'iideysteen oo ay xubnaha banaanbaxa dhigayaba ay ku dhex jireen xubnaha ama cutubka hooska ee xogaga iska caabinta ee maxaabiista ilaaliya. sida qoraalada iyo sawirradaba aad ka arki karayso oo baraha bulshada si weyn loogu baahinayo, waxaa la yidhi dadka banaanbaxa dhigaya dhammaantood waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana xogaga iska caabinta, waxaana banaanbaxaas uu ka dhacayay indhaha ciidamada Israa'iil hortooda. diyaaradaha dagaalka, kuwa darooniska, kuwa waxbasaasa dhammaantoodna iyaga ayaa ahaabaa layidhi kuwa ilaalinaya dadka banaanbaxa dhiga, inkastoo ujeeddada ay lahaayeen ay ahayd inay ka dhexelaan halkaasi xubno xogaga ka tirsan, haddana uma suuro gelin ayay yidhaahdeen dadkii maxaabiista ahaa ee la waraystay. mid ka mid a maxaabiista marka wuxuu yidhi sida tan: mudaharaadyadaasi waxay ahaayeen qorsho ay diyaariyeen unugga hooska ee Ciisediin al-Qasaam. annaga ayaa nagula dhex qaaday ama nagula soo dhex qariyey banaanbaxaasi ilaa aan ka gaarnay dhanka Qaanyoonis oo koonfurta magaalada Khaza ah. habkana loo soo galbiyey ama naloo soo guuriyana waxay ahayd hab aad loola yaabo. weligeenna ma aanan filaynin inuu guulaysan doono banaanbaxa, gaar ahaan iyadoo diyaaradaha kormeerka ee ciidamada Israa'iil ay dul wareegayeen xaafadaha kala duwan ee banaanbaxa uu ka dhacayay, annaga oo aan nala garan. waxaana laga codsaday inaan hormuud ka ahaano erayada dadka ay ku dhawaaqayaan iyo slooganada ama halkudhigyada ay isticmaalayaan. waxaana nala baray wixii aan ku qaylin lahayn buu yidhi. xitaa mararka qaarkii annaga ayaa sida halyeeyo oo kale garbaha nala saarayay oo nala dallacaya buu yidhi, si aan socodkii u sii wadno, hadaladana ku dhawaaqno erayo ka dhana xogaga iska caabinta. unugga hooska marka waxa uu ku dhuumanaya mudaharaadkaasi oo ilaa Beedlaaxya ilaa Qaanyoonisa, halkaasoo maxaabiista qaar lagu qariyey. sidoo kale ujeedadu waxay ahayd baa layidhi maadaama xilligaasi Israa'iili aad diyaaradahooda halkaasi u dhoobnaayeen, in la qariyo halka maxaabiista ay ku sugan yihiin, la kala wareejiyo, sidoo kalena aan la garan sida maxaabiista loo ilaaliyo iyo halka ay ku sugan yihiin. marka maxbuuska waxaa laga soo xigtay baa layidhi marka inuu leeyahay ujeedadu waxay ahayd in maxaabiisna la kala wareejiyo, waxna aanan la fahmin. dadkii aragtiyada ka dhiibta markaad eegto marka macluumaadkan waxay ku leeyihiin haddii xitaa Yaxya Sinwaar iyo Maxamed Dayf ay shahiideen, waxaa haray iftiinkoodii iyo aragtidoodii iyo qorshayaashii ka dhanka ahaa sida sirdoonka looga hortago. aad baa loo ammaanayay. mar kasta oo aan helno macluumaad rasmi oo ku saabsan maxbuuska xogtan bixiyeyna waan kula wadaagi doonaa insha allahu tacaala. aragtidaadana la wadaag, waad mahadsan tahay.